رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم وأستاذ عبد الفتاح أبو النور وإذن وذي مفاتيح النجاح فرياش الجوشة ما أنت وحن قادرين حلقة دي سدحات وحن كهذلنا المهارة سكيلز حرفضوا وحي كوساعدة جوشة حرفض بدن مركز قادته oo ku saabsan majaalkaaga ama dhinacaad adiga aad rabtay waxay ka saacidaysaa hadafkii aad rabtay inuu ku gaarsiyo sababtoo ah hadafkaagii wuxuu ku xiran yahay skill ayuu ku xiran yahay ama xirfad ku xiran yahay xirfadna waxaad ku keensan kartaa adigoo sameeya baaritaan fara badan waxbarasho fara badan iyo cilmi fara badan inaad qaadato waxay raadaan المهارة هي بستان الحكمة وبيرها حكمة ويان marka qofka xakiimka ahi waa qof skill leh experience leh oo xirfado badan yaqaan macrifada in raadiyana oo skill-ka la raadiyana wax weeyaan waa wadadii ku gaarsiin lahayd guushaada waxa jiray sheeko gaaban nin ayaa wuxuu waday markabkii dad badan ayaa saarnaa markabkii ayaa xumaaday matoorkii ku xumaaday markabkii dadkii oo dhan way isfiifina wax sameeyaa la waayay nin masaakiin oo meesha fadhiya ayaa wuxuu yiri ana sameynaya waxa isdahay ninkan ma sameyn karo markaas bal loo daayay bana eegne bay dhahan ninkii burus soo qaatay matoorkii oo marba dhinac kaga dhuftaa marka kale meeshii saxda uu kaga dhuftay kadibna usmaar uu ku dhajiyay uu habeeyay marka way fiicnaatay uu kacay ninkii ayaa yaabay naquudaha oo doonta waday xirfadiisa yareed oo wuxuu yiri sidee ku sameysay markaas wuxuu yiri almahara skill-keeda xirfadeeda ayaan leeyahay ayuu yiri xirfadii maskaxdii ayaan leeyahay markuu yiri iyo xirfadeedii ayuu intuu yaabay ayuu wuxuu siiyay $1 markaas wuxuu yiri $1 ii siisay 10 daqiiqo ay u qaadatay sameynteeda ma uu qalmay ninkii ayaa wuxuu yiri ma uu qalantaa $1 ayaan kugu siiyay shaqadii laakiin $999 waxaan kugu siiyay waxaan arkay meesha buruska kaga dhufatay iyo meeshii saxda ahayd kaga dhufatay waxaan ka bartay darsi cilmi ayaan bartay hadda kadibna waan sameeysan karaa ayuu yiri doonteeda marka mahaaradu iyo qofkan inuu iska la yimaado waxay saacidaysaa inuu hadafka gaaro sababtoo wax badan ay kugu toosinaysaa waxa kale oo jirtay qiso kale oo yar nin shaqaalaha cusub ayaa waxa la keenay shirkadda la keenay then warqad ayuu wuxuu doonayay inuu iskaan gareeyo uu soo baxay wuxuu ag yimid baasha warqadda shiidaysa oo burburinaysa ayuu korkeeda imaaday mana yaqaan uu soo dulisay wuu la yaabay secretary meesha soo martay markaas wuxuu weydiiyay sida loo isticmaalaa warqadii uu iskaanka u rabay ayay intay ka daftay ka qaaday ayay gelisay kadibna uu shiiday markii uu shiidmay bahalkii ayuu wuxuu weydiiyay sidee wuxuu yiri warqadii waa gelisay waa sax halkee ka gelisay oo warqadii oo sabiran oo iskaan gareysan halkuu ku soo baxa marka uu weydiinaya hadana
wuxuu sugaya warqadii wax googoonaysa inay soo saarto warqad iskaan gareysan oo qurux badan oo sawiran inay soo saarto marka waa knowledge la'aan cilmi la'aan weeyaan oo qofkan haysato oo garan la'yahay waxaan meesha ay ka soo baxayaan waxa ay tahay al-ma'rifatu quwwa knowledge is power qofku cilmigiisu waa power markaad cilmigaaga uu sareeyo shahaadadaada sareyso oo activity aad leedahay dadku way ku jeclaadaan salahan hadda shaqooyinka waxa la isku geeyaa oo kale reer iyo qabiil la isku raasada laakiin ninka cilmiga lahi ee knowledge lahi ma hoogo isla marka shaqo uu helaa shirkaddan u shaqeeyo waxay xoog saartaa dadka cilmiga leh imtixaan bay ka qaataa ninka dhaco iska dirtaa ninka baasana way qaadataa ninka iskala ilaahay khayr asiiye markay dad qaraabadiisa soo aadaan wuxuu yiraahdaa muxuu yaqaan waxa ala soo imtixaan u geey hajarka kamid ah wali keena imtixaan ka qaada ninka markuu dhaco wuxuu dhahaa ninkan uu dhacay waa inuu xirfad kala soo bartaa oo jaamacad gala wax dhigtaa marka knowledge kaagu waa power kaaga waa awooddaadii ku socodsiinaysay hadafkaaga ku taxqiijinaysay hawshaada ku toosinaysay weeyaan macrifadu marka laba loo qaybiyaa shayga inaad garato iyo shaygan meesha uu ka yimid inaad garato inaad isweydiisid weeyaan wax walba iska isticmaal ma aha saacada soo qaadata iska isticmaal ma aha meesha uu ka yimaado waa inaad isweydiisaa waxa raada ida urifa asbab badal ajab marman qaar baad diyaarad ama wax intaad fiiriso ayaa waxa leedahay diyaaradan soo ku shaqeysaa laakiin marka lagu sheego biral baa la isku kakabay si baa la isku geegay wax baa la isku tootoosiyay markaas la ha masaasa marka wax weeyaan qofka markuu wax garto sababta markuu garto ajabka uu ka baabaa marka waxa laga rabaa inaad mar walba skill macrifo badan aad qaadato weeyaan cilmigu waa amaliyatu mustamira inaad mar walba sii wado markaad dugsi sare dhameeynaysa waxa istiray cilmiga oo dhamaado iska guurso haddana waxa kugu soo furfurmay inaad wali cilmi u baahan tahay jaamacada gashay jaamacadii waxaad ka qaadatay baaj haddana waxaad istiray dadkii baajka lama qaato maalmahan shaqo ma helaanba iska dhaadhicisay haddana maxaad qaadatay master tagtay masterkii haddana waxaad tiray wili ugu yartahay PhD cilmiga ma dhamaadaba cilmiga mar walba waa inaad sii wadaa mar walba aad cilmi qaadatid your value qiimahaagu kordhaya qiimahaagu sare ayuu kacayaa adigana waxaad yeelanaysaa maxay quwwa power ay yeeshanaysaa marka the more power aad yeeshatana the more aad dadka kale ay ku sharafaan ay ku respect gareeyaan waxa lagu respect gareenayo lagu tixgelinayo waxa weeyaan cilmiga aad leedahay weeyaan cilmigaagu markuu sareeyo dadka aad la shaqeynaysidna way ku ixtiraamayaan dadka aad wax baraysidna way ku ixtiraamaan bulshaduna way ku ixtiraamaysaa cilmigu waa amaliya mustamira soconaysa ma joogsato okay waxaan ku soo qatimayaa xalqadan أعلى درجة المعرفة سيد لو جارو ماشي صاري معرفة واحد سميستا واحد كسيني أدفايس يا أدفايس كاس مرة بينا كددال هنا القاعدة كو واحد صوت قدرتها بشي وكله CD واحد كدوان علمي كدوان وكله إسكده جيسو مرة علمي كقاعدة كورسو واحد كله سميسا واحد صوت قدرتها كتاب ير أودد قرآن ويلبو أو قرآن وقفة عشاي oo aad ka dambeeysid oo mar walba mentorkaaga ku dayatid kitaabkaas akhri maalintii 10 daqiiqo si kitaabkaas akhri bishii hal kitaab lawada kitaab inaad dhameeysid isku day waa cilmi okay qiraa'ada mar walba waxay ku soo kordhisaa maxay cilmiga ku soo kordhinaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu horeysay waxa lagu bilaabay diinta iqra akhri the more akhrisid wax weeyaan the more aad cilmi heshid Soomaalida aan ismaaca badina dhageysiga listening ka noo fiican laakiin akhrintu waxay ku kordhinaysaa maharadaada iyo skillkaaga xirfadaadana waxay ku siinaysaa knowledge-gana wuxuu ku siinayaa awood iyo power ayuu ku siinayaa okay waxa kale sameeysaa sanadkii laba muxaadaro kale sanadkii xaadir muxaadarada saddex joog dhageyso cilmi ka qaado waxa kale sameeysaa hadaf sameeyso oo aad rabtay inaad gaarto yool sameeyso waxa kale sameeysaa waqti aad ku fikirtid sameeyso oo wax cusub aad ku soo jeedisid oo dreamkaaga iyo riyooyinkaaga aad ku soo bandhigtid waxa kale sameeysataa notebook yar oo mar walba wax kugu soo dhacaan aad ku qorto sameeyso isagana wuxuu ka caawinaya skillka ayuu ka caawinaya sare u qaadaya maalintii waxa isku daydaa labo kelmad ama hal kelmad inaad xifdiso
tusaale hal kelmad kugu cusub English oo kale ama kelmad kale oo luqad kale aad rabtid oo kale inaad maalintii hal xataa ahaato maalin walba saa u wadid kum ayuu gaarayaa wuu sii badanayaa bid ururtay waa masaar Soomaaliya saasay raada marka waxa sameeysaa hal kelmad maalintii oo kugu cusub xifdi waxa kale sameeysaa maalintii inaad isweydiiso su'aal maanta maxaad qabatay maanta wax fiican ma qabatay maanta maxaa soo kordhisay isweydii adiga su'aal waxay taas ku siinaysaa dawaafic ayay ku siinaysaa motivation ku siinaysaa oo inaad hore u dhaqaaqdo ayay ku siinaysaa intaadan seexan ka horna maanta maxaad qabatay dheh maxaa kugu fiicnaa dheh ka fikir meelna dhig intaas waa advice oo ka saacidaya skill-kaaga ama knowledge-kaaga hal meel kaliya ha fariisanin hal meel kaliya ha joogin cilmigaaga kordhi value-gaaga ha kordho mar walbana respect aad helaysaa xalqadooyinka ayaa sii wada doona insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك